qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee ka howlgala magaalada Cadaado ayaa qiimo dhimis u sameeyay isbitaalka guud ee magaalada Cadaado waxaana ka mid ah shirkadahaasi shirkadda Hogol oo ah shirkadda biyo-gelinta ee magaalada Cadaado taasoo sheegtay in 50% ay dhintay qiimaha biyaha ay siiso isbitaalka ayaa waxa maanta booqasho ku tagay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug oo isugu jiray wasiirro xildhibaano iyo maamulka degmada Cadaado waxa sidoo kale isbitaalka booqasho ku tagay maamulka shirkadda biyo-gelinta Hogol oo ah shirkadda qiimo dhimista u sameysay isbitaalka ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay madaxa isbitaalka Cadaado Dr. Maxamed Cumar isagoo u mahad celiyay shirkadda Hogol qiimo dhimista ay u sameysay adeegga dhanka biyaha ah ee isbitaalka siiso runtii sharaf weyn ayay noo tahay inaad maanta marqaatin nagala ahaataan mataqaana heshiiskaas qiimaha badan ee meeshan ka dhacay iyo mataqaana garashadaas iyo waxqabadka ay bulshada u hayso shirkadaas Hogol aan ugu mahad celinayno waxaan leenahay shirkadda Hogol runtiina horena isbitaalka qayb weyn ayaa uga soo qayb qaateen horumarintiisa haddana waa qayb kale oo muhiim ah runtii aan la koobi karinin aad ayaa u mahadsantiin ilaahay khayr ha idin siiyo ilaahay ha idin barakeeyo shirkadiina iyo mataqaana adeeg guud ee bulshada u haysan gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootole oo ka mid ah mas'uuliyiintii maanta booqashada ku tagay isbitaalka Cadaado ayaa sheegay in isbitaalku uu adeeg muhiim ah u hayo bulshada gobolka isla markaana loo baahan yahay in cid kasta oo gacan ka geysan karta horumarintiisa ay gacan ka geysato waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo shirkadda Hogol oo wada ogsoonahay inay mar kasta u taagan tahay dadka danyarta iyo dadka dhibaataysan marka inay maanta isbitaalkii 50% lacag badan baa bishii ku baxda isbitaalkan oo dhinaca biyaha ah wax badanna waxay u tari doontaa isbitaalka hadii loo reebo marka waan kaga mahad celinayaa Hogol faanol farikama qodna waxaana waa isbitaal waa waxa bini aadamku ugu baahi badan yahay waayo qofku markuu xanuunsado wax kasta wuxuu siisan lahaa wuxuu isku daaweeyahay marka waana meeshii wax lagu daaweynayo idinkana waxaan leenahay hore u sii socda maalinba tilaabada qaadi kartiin qaada annaguna waa idin garab taagan isbitaalka guud ee magaalada Cadaado ayaa ah isbitaal ay adeeg caafimaad ka soo doontaan in badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolka Galgaduud Cabdi Xasan Awowe warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Cadaado.